waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo bahda Tabaarak oo iyagu nala ah partnership saaka waxa aan meesha u fadhino wada tashi dhanka horumarinta systemka gobolka Banaadir uu ku shaqeeyo iyo sidii loo casriyeyn lahaa oo dunida horumartay sida ay u shaqeyso kale uu noqon lahaa systemka hadda aan ku shaqeyno. waxaan isleeyahay wada tashigan maanta iyo biri socon doono inaad bal isku weydaarsataan amba aad ku soo bandhigtaan caqabadaha idinka haysto systemka maadaama qaybihii kala duwanaa ay ku shaqeynayay aad tihiin. annagu mar walba waxaa naga go'an adeeg hufan oo horumarsan in aan gaarsiino bulshada. si loo gaarsiiyana waa system casri ah in la helo. kaliya ma ahan in si farsamo ah systemka looga tashanayo amba loo horumarinayo. muhiimaddu waa in aan dhisno kalsoonida muwaadinka. maxaa yeelay haddii la helo system wanaagsan iyo adeeg wanaagsan waxa meesha dhismi doono bulshada amba muwaadinka Soomaaliyeed kalsoonida uu ku qabo maamul gobolka Banaadir. sidaa darteed waxaan rabnaa maanta bal in aad soo bandhigtaan caqabadaha ka jiro dhanka systemka sidoo kalena talooyin aad soo jeedisaan sidii loo horumarin lahaa amba loo gudbi lahaa. shirkadda Tabaarak oo iyadu gacanta ku haysa systemkan wax ka rabnaa bal wixii arrimaha ka soo kordho oo talooyinka ay qaybaha kala duwan agaasimayaasha amba madax qeybyada ku shaqada leh ee qusaysa systemka ku shaqeeya waxa ay soo gudbiyaan in maxaa la yiraahdaa iyadana ay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa oo looga dhigi lahaa system digital oo casri ah dunidana la jaan qaadi karo adeeg wanaagsanna aan bulshada ku gaarsiin doono. akhyaaray marka aniga barnaamijkeena waa noo iba furaaye waxaan rajaynayaa maanta inaad goosgooso doontaan amba aad ka wada hadli doontaan caqabadaha idinka haysta dhanka systemka iyo sidii loo horumari lahaa. maxaa yeelay adinka la macaamishaan Tabaarakna waxaan ka rajaynaynaa oo iyadu workshopkan soo abaabushay in labadaas cisho talooyin ka soo baxay soo aruuri doonaan horumarin fiican ay ka sameyn doonaan. barnaamijkeen waa noo furan yahay waana mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan rajaynayaa in wax miro dhal ah oo lagu dhaqmi karo oo u aayi doono gobolka Banaadir inay ka soo bixi doonaan maanta iyo bariba wada tashiga kulankan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.